laakiin waxaan rabaa mudane gudoomiye guddiga riboorkiisu aad u sareeyay laakiin wuxuu ahaa fawaylu lil musalliina halkaas ay uga tageen guddiga riboorkiisa wuxuu sheegay inay sharci darro ahayd in qalbi dhagax la dhiibo recommendationkiisina wuxuu ku daray shahal cad Soomaaliya ha fiicnaato Soomaaliya ha kala leexato Soomaaliya haddaan qofna mas'uuliyadda qaadaynin say u kala leexanaysaa gudoomiye fawaylu lil musalliina الذين هم عن صلاتهم ساهون وباهنت هذيك الواحد دكان على أركي ماي هذا ما أنت مركز ريبورك أنا دقي سنة هذا إن قلب الدجح والشرع الدرو لجود ديبي هذا لجود دارين وغيران أضعف الإيمان recommendation كا ورقلب الدجح هلا سوء عليه كو ورأو إن لف أرجع حسام هنا أرجع حسام ما هنا هلا وقرر recommendation كا دولة يقولها وزيرنا هكلا بتاع لابو يوحلا ميدا هذا لجود دارين مدن قدومية آيات واجبنتها فويل للمسلمين إنه كل سمنته أنا رأيي قدرت كقابة طبعا ريبورك إنه في عينها أنا لكن هلا صح كو لبو قدومية يحل بارنا ده شرفت له وربحين تسام كل بيسني حال كسان أولى سعوني قلب دقح والله في دبي حير محكمات أما ورقد محكمات لقوم السوقبا في البندبية نفرا كل مجرين مركي دولة la ogaaday oo dawladda laga hadlana waxay yiraahdeen asagan ka soo badbaadinay koox xarab inay afduubaan markii la yiri ninka ha dhiibinina waxay yiraahdeen ma dhiibayno ee asaga dalbaday inuu Itoobiya la hadlo markii Itoobiya ay soo hadashay tirinin argixisada weyn la soo dhiibay waraaqda dawladda waa isku dhaxyaacday golaha wasiirada waxa la fariisiyay 10 bari kadib waxa la yiri ninkii dambiilow ahaayee urur argixisada ka tirsanaaye hadda aan dhahno وانا تومبري نسي مقد قدومي مدريال حلبانada sharafta waxaan rabaa diibista qalbi dhagax xilmada diibista qof walba Soomaaliyeed oo man qatala nafsan فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا dalka Soomaaliyeed wuxuu ka koobmaa dhulka dadka calanka iyo siyaadada dhulka talaabo in laga tanaasulo lama ogola dadkana qof in laga tanaasulo lama ogola bixinta qalbi dhagax waxay u dhigantaa dhulka iyo dadka ayadoo laga tanaasulo oo siyaadadii dawladnimada laga tanaasulo waxaan rabaa riboorka waxa ku qoraa oo saaxiibaday ay sheegeen in hay'adda nabad sugidda ay ka mas'uul tahay dhiibista qalbi dhagax mahma arbeeda waxay tiraa waxay raaliga hada ayada ma arbeeda waxay tiraa ida kunta tadri fatilka musibatun wa ida kunta la tadri fal musibatu a'dam madaxda sare ee dalka arinta dhiibista qalbi dhagax haday wax ka ogaayeen waa musiibo hadaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay mas'uuliyadna lagu aamini karo labada xaaladoodba midna uma fiicna gudoomiye cali xoosh hadaa tiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ma ogeyn taliyaha nabad sugidda dhoofiyay hadaa tiri fatilka musiibatun nama xukumi karaan mana saxna ma inay dalka xukumaan haday ogaayeenna waa ka falxunta wadana gudoomiye sida ku cad warbixinta guddiga arinta qalbi dhagax lifaaqida sida ku cad wasaaradda amnigu ma ogeyn wasiirka cadaaladdu waa ka diiday immigration-ku ma ogeyn hay'adda diyaaraduhu ma ogeyn cid la ogeed madaxda sare ma jirin marka waxaan rabaa in aan mas'uuliyadda laga gambanin waxaan rabaa halkaan inaan marka ka soo jeediyo ugu yaraan adcaful iimaan inay dhiibista qalbi dhagax ahayd khiyaamo weyn oo khalada in la saxana loo baahan yahay kow labo oo aan rafadana wax u tari karin inay naga nabad gasho ayada Itoobiya hadaan heshiisiin karno waa shaqo weyn oo la qabto saddex waxaan rabaa gudoomiye inaan xasuusiyo baarlamaanka sharafta leh waxaa jira nin Sacuudiyaan oo mucaarad al-Mas'ari la yiraahdo oo London ku nool oo dawladda Sacuudiga muddo dheer mucaarad ku ahaa dawladda Sacuudiga lacag 22 bilyan oo dollar safqa la yaqaan oo safqada al-Yamama la yiraahdo waxay la gashay dawladda Ingiriiska waqtigaas ee John Major laakiin waxa lagu xiray in al-Mas'ari ay soo dhiibaan John Major waa ogolaaday iyo xukuumaddiisii iyo nabad sugiddiisii intii sida hadda anaga noo gasho kale qaadi Ingiriis ah joojiyo diiday qaadiga la wareysay markaas wuxuu yiri maanta hadaan al-Mas'ari dulmi ku dhiibo bari ilmahayga aniga in dulmiga nagu soo laabto kama wax shaki iga ma jiraan
waxaan aad iyo aad ula yaabanahay qof walba oo baarlamaankan fadhiyo ama shacabka Soomaaliyeed meesha uu rabo ha joogo ee madaxda ku difaaca maanta dhiibista qalbi dhagax ninkii walaalka loo xiro bari soo qoyso waaye waxa adiga bari ku difaaci doonaa su'aasheeda aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa gudoomiye baarlamaanada sharafta leh ina ilaahay hortiisa ku marqaati furo adinkoo fadhiya inaan raalli ka ahayn dhiibista qalbi dhagax oo golayn dambi ay tahay ayna tahay cidi geysatay la ciqaab ma aaminsanin inay hadda nabad sugidta tahay ma aaminsanin madaxdu inaysan ogeyn haddaysan ogeyn waa musiibo hadday ogaayeenna waa musiibo ka weyn waxaan rabaa inaan halkan u sheego qalbi dhagax waxa ugu yar oo u tari kara waxay tahay qoyskiisa bil gunadeeda ka mid ah